السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أرضي كحرن بيج سبحانه كريتيف وأنا إذن سلام أولا وإحنا إذن كسلام يا سلامتا إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مر الله هذه مرة تحت ما أنتوا حرب لنا سمعنا بور إسكسين بلا بور كاسوة سيدي باوس ميزن كرتا بور الروس أما بور حلفة أما بور كان الروسي أنت بدل على السوشيال ميديا لا صديقه هذا بكسر بنا سمعنا هذا أنت أنا سمعين بيج كتذكر سبتاي هاي هلوين ina subscribe aad sartid okay saddex step aan mari doona si aan u sameeyno boorkaas xalfada aroos koow waa inay sawirada ku diyaarsan yihiin laba waa inay farti u isticmaalayso ay ku diyaarsan tahay saddexna waa inay ku diyaarsan tahay goobta u rabtay iyo taariikhdii waxa waa inay ku qorsheysan yihiin waxa markii ku qorsheysan yihiin ayaa shaqo qaban kartaa bilbilan kaba soo qaad guriga rabtaa inaad dhistid gurigii musaabir moodid dubu moodid maxaa wax ku dhisaysaa waxa waa inay ku qorsheysan yihiin haddaba mar ina hadalkan igu sii dheereeyo hadda ayaan bilaabeynaa shaqadeena koowaad marka koowaad waxaad soo furinaysaa Adobe Illustrator soo furinaysaa boorka waxa ku sameyn rabno waa Adobe Illustrator marka soo furno waxaan tageynaa meesha ay ku qoran tahay Create New ama keyboardka waxa ka qaban kartaa Control N automatically cabirka lagu soo saaraya cabirka intaan ka bedelayaa meeshan font umar waxaan rabaa pixel kan cabirkan waxaan gashanayaa 80 oo cabirka social media loogu tiragalay way Facebook-yada Instagram-yada loogu tiragalay dhammaan social media-na waa loogu tiragalay okay way halkan oo kale waxaan iskaga qoranayaa xalfad aroos oo kale iskaga qoranayaa hoosan imaanaya halkan si YK waa ka bedelaya oo RGB aan ka dhiganay halkan resolution-kii waa 300 inay ku ahaato weeye dib create leenahay create marka sameeyno waxa noo soo bixi doona projectiga aan noo soo bixi doona ama cabirka markuu noo soo baxo alle horta marka horeyso waxa iga xirtaa stroke iga xiraa leeyahay marka labaad mastaradina soo saarneena mastarad laan wax uma shaqeyn karo wixii de marka qiyaas kartid way ka babaxayaan waxaan waxa fiican cabirka dhexda ku waadisan saddexdaas calaamada aan soo saarnay kaliya kadib okay leeyahay mastaradina sidaas aan lagu soo saaray kadib waxaan leeyahay laba color oo noo sameey laba color oo ku dadaaran hadhow colorka koowaad colorkan ayaan ka dhiganaynaa colorkan okay colorka labaad waxa ka dhigan doona insha Allah haduu Ilaahay kale noqdo colorkan cadaan xigaha ka dhiganayna color saddexaad noo soo qaad okay color saddexaad noo soo qaad waxaan naga dhigtaa colorkeena saddexaad black naga dhig sababta saddexdaas color waa isku soo baxayeen marka horeyso waxaan u baahanahay inaan tago meeshan type tool-ka kadib halkan waxaan ku qoranayaa xaflad waxaan ku qoranayaa xalfad aroos ku qoranayaa kadib waxaan tagayaa meeshan size farta laga weyneeyo kadib waa weyneynaya halkan waxaan ku qoranayaa fonts la yiraahdo fontskan inta badan waxa loo isticmaalaa xalfadaha aroos Felix Gerrara la yiraahdaa fontskeeda waa hadaad fontska ana ku soo diro kaliya ii soo diray soo qor dhanka commentiga si degdeg ayaan kugu soo dirayaa okay waayahay markaas sameysano sidaan aan qorano halkan hadana tagi doona waxaan ku qoran doonaa wixii hadda waa si diyaarsanaynaa mudane abdi okay sidaas markaan ugu qorano kale halkan noo soo dhig dib isla qabo halkan oo kale ku qoro waxaan ku qoranayaa marwo Mrs aan ku qoranayaa Mrs Hawa okay sidaas markaan ugu diyaarsaday inta dib waxaan tagayaa rectangle soo qaadanaya halkaas click ku siinaya inta waxa gashanaya cabirkan 18 hoosna waxaan gashanayaa 18 ugu waa cabirkan koo soo dooranay way dib waxaan sameynayaa inaan color-radan soo sameystay aan ku darto anigoo qabanayo waxaan qabanayaa xarafka hadaan qabto artboard-kayga automatically waa lidoria waxaan leeyahay red click arrange tag hoos iigeeya leeyahay kan hoos iigeey okay waayahay sida markuu ku noqdo waxaan leeyahay control 2 oo using iga dhaqaaqin hadana waxaan tagayaa xalfad aroos kaas ku daaranayaa okay waayahay sida markaa u sameeyno waxaan tagaynaa hadana shape tool kadib waxaan dooranayna ellipse tool ka sii dooranayna centerkaas ay maanana inta soo kala leenahay kadib markaa sidaas aan sameeyno geeskan geeya leenahay geeskaas oo kala geey waxay cabirkii ugu daraayay alleeyahay cabirkan waa yar yahay kadibna waxaan sameeynaa control C control V leenahay soo weynaya leenahay wax yar aan badnaan kadib stroke u bedelaya hadda waa fill stroke oo bedelaya wax yar cabirka ku darsanaya kadib stroke haya waxaan ku sameeynaa control C control V leeyahay waxaan leeyahay isagana wax yar soo yar weynaya leeyahay kadib halkaas oo kale markuu noqdo stroke umrna fill orna leeyahay kadib opacity u yareeyaa leenahay opacity u yareeyo laanta soo kale ka dhig dib waxaan tagayaa meesha ay ku qoran tahay layer hadaan ka waysto waxa tagaysaa window marka tagtid layer aad si tagaysaa kadib halkaas isha furaysaa
kadib waxaa leenahay ellipse toolka koowaad aan rabnaa ellipse toolka koowaad soo calaa soo furnaysa right click aa leedahay kadib waxaa leedahay halkaas noo soo qoraysay okay kana haddana highlight garaysana waxaan tegaynaa altaan qabanayaa alta haddaa qabtid automatically laba xab baa lagaa dhigayaa markausaa laba xab markaa lagaa dhigo na hore waxaan taabanayaa halkaas ellipse toolka hore markaan taabto meesha ay ku qoran tahay draw inside ku dhufanayaa kadib waxaan tagayaa file si aan sawir usoo gashto waxaan tagayaa place kadib place markaan tago sawiraantaan automatically waa ay diyaarsan yihiin waa kana sawirka ugu horeeyo adigan baa soo qaatay sawiraantan haddii aad rabtid waxaad ka helaysaa Pinterest-ka ama Chrome-hada ka helaysaa adigoo qoraayo qofka aad rabtid shakhsiyadda markaas aad rabtid kadib waxay yareeyaa leeyahay oo geeskan oo badaya leeyahay halkaasoo kale iigee okay halkaasoo kale marka geysto kligaa siinaya automatically ujeedaa wuu galay okay kana imaanaya haddana sideedan sameynaya kadib file aad tagayaa waxaan sii tagayaa place haddana gabadhiyaa soo qaadanaya gabadha markaa soo qaatay iidan halkaasoo kale ku calaamadaysanaya automatically ay ku jirtaa rajeynaya kadib halkaas xawaa igu soo badaya leeyahay hadduu kaa noqdo hawlwelin kadib inside leedhe waxaa sameeyaa inaan qof intaan ku xiran group ka dhiganayaa halkaana group ka dhigo kana group ka dhigo labadooda isla qabo adoo shift isla haayo kadib shift qabo oo kana click si kadib kor iga wada sandhe kadib right click dhig group dheh kadib haddana centerka ii geeyde kadib markii centerka lagu geeyo magaca koowaad automatically waa ku diyaarsan yahay mid ogow haddaan sidaan aan dhaho halkaasoo kale aan geysto waa caadi mujida siisan dhaqdhaqaaqin control 2 leeyahay automatically haddana gabadha magaceedaan soo qaadanaya halkaasoo kale geysanaya dib shift yaa qabanaya magaca wiilkan haddana click siinaya halkaasoo alaagnayaasoo qornayna igada sameeyeen waaya leeyahay okay waaya sidaan markaa u sameysto waxaan soo qaadanayaa rectangle halkaasoo kale ku calaamadeysanaya halkaasoo kale ku calaamadeysanaya okay halkaasoo kale ku calaamadeysanaya halkaasoo kale markaa ku calaamadsado waxaan sameynayaa inaan taabto ayaan taabto kadib halkaas aan dhaho si aan uga qoro taariikhda isguursanaya iyo wixii kadib tab tool aan soo qaadanaya wiilka abiisoo kale waxaa la yiraahdaa Maxamed Cali okay fonts waa bedeli doonaa oo fonts waxaan ka dhigi doonaa robot fonts kan aan ka dhigan doonaa robot-ka ah kadib halkaas aan click ku siinaya move tool-ka kadib waa qabanaya waa yareynaya halkan wiilka magaciisa abiis halkaas u rabaa waxay ii soo dhaweeyay control plus waa xeer ii soo dhaweey kadib xiriir waa yareynaya halkaasoo kale geysanaya kadib control 0 leeyahay oo kadib kana alta la qabanaya halkaasoo kale geenaya kadib gabadha abad waxaa la yiraahdaa Jamaal Isxaaq okay magacyada aabaha isla qabanaya magacyada aabaha oo kale isla qabanaya shift aan haayo kadib ayaa tagaya si aan kalkaas ugu shubto okay hadda waxay waa nidaamsan yihiin waxaad tagaysaa haddana file markaad tagtid waxaad sii tagaysaa place markaa place aad sii tagtid aniga waxaa jirtaa waa ii diyaarsan yihiin waxaa igu qoran alaabta aroosyada waxaa hayaan alaabta aroosyada ah oo yacni fargalkii iyo wixii oo dhan rabtid waa kuu soo diri karaa kaliya ii soo dir igu soo qor waa kuu soo dirayaa waliba nadiif ah kugu soo dirayaa nadiif bay kugu soo gaarayaan ma fahanti halkaasoo kale geysanaya cabirka waxay yareysanayaa cabirka laanta soo ka dhiganaya halkaasoo kale geysanaya boorkan imid qurux badan baa sameyn kartaa wax walba waa fikirkaadii iyo isku daygaada waay iyo hadda waxaan soo koobana waxay tahay waqtiga inuu soo naglumin ayaan rabnaa oo iska soo koobana kadib waxaan sameysanayaa shape yar waxaan sameysanayaa oo aan geliyo waqtigii okay waa soo qaadanayaa kadib markaan soo qaato kala halkaasoo kale dhiganaya halkaasoo kale markaan dhigto waxaa leeyahay waxaa igu sameysaa stroke igu sameeyaa stroke ku badan ilaa iyo 3 oo kale ka dhig okay suusan iga dhaqdhaqaaqin control 2 mar walba waxa ogaataa waxa inuusan ka dhaqdhaqaaqin ku dadaal kan soo halkaasoo kale dhig okay waxa aad file place kadib inta waxaan soo gashanayaa waqtigii waxa waa inay ku diyaarsan yihiin ana hadda wixii automatically waa ii diyaarsan yihiin icon qora iconada hal meel ay ugu jiraan hadda waxaan rabaa inaan waqtiga soo geliyo halkan waqtiga inaan soo geliyo rabaa iyo location-ka waqtiga iyo location-ka rabaa inaan soo geliyo okay waa kana waqtiga waa soo qaadanaya halkaasoo kala dhiganaya kadib waxaan leeyahay embed kadib waxaan ka sii tagayaa image trace kadib waxaan sii furayaa halkaas markaan sii furo expand yaa leeyahay halkan aan ku daaranayaa marka kadib waa yareynaya waa xir si aan halkaas u geliyo
waxaadana waxaa ku dadaashaa inaysan hal kalar ama laba kalar aysan ka badnaanin. hal kalar ama laba kalar inaysan ka badnaanin ku dadaal. waxaana centerka iyo centerka waa inay ku aadisan yihiin oo waxa ay ku nidaamsan yihiin waaye. waxa haddaysan ku nidaamsaneen ma yara qurux badno. okay sidaas markaa ka dhigano labadan siisan iga dhaqdhaqaaqin group iga dhig. waqtiga waa soo koobaynaa oo waxaa ka dhigaynaa dadkaas oo kale waxay isguursan rabaan. bisha hadda lagu jiro waxaa weeye bisha sideedaad la iska dhigay sideedaad kowdeeda isguursan rabaan. sideedaad kowdeedii 2026 isguursan rabaan. okay fontskan wada dooro kadib waxaa iga dhigtaa bold iga dhig. bold caadi ka dhig. halkan soo qabo halkaas kale igey waxir kalarkan waxaa iga dhigtaa noocaas. kadib waxir zoom iyo soo dheh yaray marka intaan cabirkan yaray halkaas oo kale igey. kadib waxir soo dhaweey halkaas kale la sandhe. waxaa tagtaa haddana file sidaan usoo qaadana locationkii. hadda labadaas waa isdabamarin doonaa wax mushkilad ma lahan. locationkana waa kana oo waa ii diyaarsan yihiin ikoona badan aan hayaa oo waxyaabo badan kaa caawinaya waqtigaadana kusoo koobayo. waxaan rajaynayaa muuqaalkan daawashadiisa aad ka heli doontaan insha allah. haddii waa cilad ay kula kulantana keliya iisoo qor. ciladaas ay haysataa anaa si degdeg kaaga saarayo insha allah. qaybta commentigana igu soo qor. haddaadan cashirkan fahmina cashir kale qayb kale kasoo samayn doonaa insha allah hadduu ilaahay ka raali noqdo. keliya waxaa samaysaa cashirka si fiican u daabo. codkayga waxaan rajaynaya horta codkayga inuu gogo-ayo waaba filayaabo dhibaato ma lahan laakiin muhiimaddu waxay tahay qofka inuu wax fahmi karo. inaad ka faa'iidaysanaysidna waa rajayn doonaa. okay waxaan sameynayaa labadan soo qaad oo halkan oo kale ii kan dheh sababtoo ah mar walba kan intuu leeyahay locationkaa soo horeeya. kadib kan alta la qabo waxaan rabaa inaan ka qaato soo kale gee. kadib waxaan leeyahay waxay dadkan isku aroos rabaan goobta Garowe. goobta waxaan ka dhignay Garowe balse waxaan sameynaynaa hadda inaan sidaan dhahno kor u yara qaadno halkaas oo kale ka dhigno Garowe oo kale aan aad usii yareyno midkiga yacni fontskan u isticmaalna Garowe oo kale inaan yareyno ka dhigno ring galaar oo kale. kadib waxyar aan yareyno kadib kalarkan aan ka dhigno black. okay sidaas markaa sameyno waxaan sameynaynaa kan waxyar kor u yara qaadaan leenahay. labadan group kaligaa leenahay intaana group ka dhig. waxyar soo dhawaa leenahay kan intaasoo kale ka dhig. labadooda isla qabo korka wada sinaan leeyahay korka wada sindaya. kadib right click dhig group dheh haddana centerka iyo geydhe labadooda. okay automatically boorkeena waa dhammaan rabnaa keliya waxaa noo dhiman waxyar oo keliya noo dhiman. waxyar noo dhiman fartan oo keliya hadda aan soo qaatay oo kuuba ayaan soo dhahay. fartan waxaa weeye baarakallahu wabaarakum. fartan haddaa rabtid ama qoraalkan waxaa ka helaysaa printerskaada haddaa qortid way kusoo bixisaa keliya ama mobilkaada kusoo qoran kartaa. ana hadda mobilkaygaan kusoo qortay oo mobilkaygaan kusoo habeystay oo mobilkaygaan kusoo nidaamsaday. okay kalarkaasaan rabaa inaan ka dhigaa leeyahay waxyar hoos iisoo geliyaa leeyahay. kadib waxaan sameynayaa inaan halkan tago oo halkan ku qoro guurkiina waxaa leeyahay waxaa artida iskaga qori kartaa halkan gacal. ana halkan waxaan ku qoranayaa gacal iyo sokeeyaba arooskiina lagu wada farax. okay waayahay. kadib waxaan sameysanayaa inaan halkan soo dhigto soo kale aan soo dhigto. kadib waxaan sameynayaa kan iyo waxaan isla qabanayaa qoraalka carabiga ahay hoosan waxyar soo yara dhigay. kadib waxaan sameynayaa intaan oo dhan inaan wada qabto kadib kor aan u yara qaado si meeshii base ay igu soo banaanaato. jidda wixii waqti kooban aan ku qabanay. xitaa hadda fartaan oo kale waxaa u isticmaali kartaa far la yiraahdo script yaa la yiraahdaa script yaa la yiraahdaa oo inta badanaa far aad u qurux badan waaye. font sidan waa haddaa ku wareertay xitaa anaa kuu soo dirayaa font si qurux badan oo inaba aan caadi ahayn. okay halkaas oo kale xitaa waa ku deysan kartaa ama waxaa samayn kartaa inaa qabatida kan oo kale ku deysan kartaa. fontsaan waa aragteen kadib cabirka u yareynaysaa kana 3 mar kala kliksinaysaa waxaa leedahay cabir kale u yarey
sideed oo kale okay 48 oo kale ka dhiganaya kadib waxaan leeyahay centerka ii keen automatically wuu imaanaya markoosa kana waxay cabirka ii yareeyaa leeyahay cabirka isagana yareynaya cashirkeeni wuu dheeraaday laakiin inaad ka faa'iideysan doontiin ay insha Allah ka bagan doontiin wixii niigu adkaado cashirkan qayb saddexaad soo sameey ama qaab labaad ka soo sameey waa idii kartiin saa idinkana u fahantiin cashirkeena hadda gabagabo ku dhow yahay kaliya hadda waxaan tagayaa fail dib waxaan sii tagayaa place fiyooriyaashii iyo wixii oo kaliya hadda soo qaadanaya oo wax sidaas igama dhinno cashirkeena waa iska gabagabo idinkana fahanteen rajeynaya insha Allah wax walba risal walba aan u isticmaalay posterkan kaliya qortid isoo dir waa ku soo diraya insha Allah fududa ku soo diraya oo garamka diga soo qaban doonta insha Allah hadduu baalka sidan ka noqdo sidan ha u leexin right click leede response tab waxa tagtaa reflect asaa ku soo jiisanaya fahanti halkaas oo kala geey kan isla qabo oo waxa dhacdaa kor iga wada sande kor laga yaabsanaya okay shirkeeni asoo ku ogyahay boorkeena hadda waa dhameynay fududa oo dhameynay wili anaga hadda waqti yar kooban ku sameynay boorkan iyo boor qurux badan waa sabay kartaa cashirkeena halkaas aan ku soo gabagabeynaya السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.